odayaasha cuqaasha iyo haweenka deegaanka Tifafle ayaa ka hadlay xiisad coladeed oo maalmihii la soo dhaafay ka taagneed halkaasi waxayna baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyagoona ku codsaday in arintaasi lagu dhameeyo wada hadal. Odayaasha iyo cuqaasha ayaa intaasi ku daray in waqtigan wadanka ka taagan tahay abaar saameysay dadka iyo dunyadaba aanan loo baahnayn colaad, waxayna sheegeen in dhulkaas la isku haystaa ay yihiin dooxooyin dadka abaaruhu saameeyeen ay deganayeen, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in laga qabto colaadda ciidanka qaranka dadka hadda la soo duldhoobay ee xabadu ku socoto in laga qabto oo laga joojiyo xabada iyo xumaanta socota. dadku maanta waxay rabaan taageero oo caawiyo u baahan yihiin xabad iyo colaad iyo baraka uma baahna. 500 oo reer oo 4 jooh isaga soo guuray oo abaar isugu keentay baa meesha yaala. dadkaasina waxay rabaan in la badbaadiyo aanu ka sidno deegaanka Canji oo ay ku socoto abaaro colaad iyo caaqib la'aan fara badan oo dad gaar ah ay ku wadaan. waxaanu uga cabanaynaa Ilaahay, waxaanu saaka codsiga kan aanu u soo diyaar garaynay dhammaan madaxda horta marka hore Soomaaliland. waxa ay si gaar ah u qusaysaa madaxweynaha Soomaaliland ku xigeenkiisa wasiiradiisa iyo dhammaan wixii waxgarada ee maamulka Soomaaliland xilkiisa haya. waxaanu leenahay waxa saaka ay goobteedu taagan tahay waadogeed mudane madaxweyne meelo fara badan oo deegaanka Laascaanood ka mid ah oo aad hadda ka hor kaga dhawaaqday wax xoolo daaqeen hal la joojiyo. waxaanu ku sheegaynaa arrimahaas iyaga inaan waxba ka fulin, dadkii aad xilkaas iyada kaga tagtana aan waxba ka qaban. waxay leeydadaanu ku qiyaasnay 100 reer ka badan. waxaan noo yimaayaan dhaweyd hay'ad ay umada wataan raashin yar baysi aan u qaybiya waxa la leeyahay sidii mabartanka kaga gooyn. hay'adii labaad ee noo timaadaa waxay noqotay ciidankii Soomaaliland oo dhashiikayaal iyo noogu soo deeqay inay nagu gumaadaan baroomo iyo wixii ay hub haysteen ee loogu talagalay cadawga dibadda ka jira dalka Soomaaliland. waxa weeye shalay anigu dhulka waxaan ku maray sahan dadka dhulka xabadu ka dhacayso, dadka dooxada yaal meesha riigu ka taagan yahay nabadgelyaan ku maray, eegis baan ku maray, waa ka argagaxay. dadka rasaas baa ku iyo dunyadiiba lagu sigay waxna waa ku dhacday. anigu arintaa waxaan kala hadlayaa oo saarayaa yaasiin xaaji maxamuud wasiirka daaqiliga iyo wasiirka biyaha yaan kala hadlayaa. waxaan leeyahay wadanka nabad ku soo dabaala, dadku waa dadkiinii sida aad u lahayd wasiir aad u lahayd joojin maayo ka daacala naqso arintaa u noqo. arintaasi aday ku xumaynaysaa, dadkaaga xumaynaysaa, mas'uuliyadnimadaada xumaynaysaa, haddii ilaahay ku dadweynaha xumaynaysaa. Fadxi Faarax Diiriye, Bulsha TV, magaalada Laascaanood.